salaamullaahi calaykum kulan wacan oo wanaagsan khiyaartana daawanaysaay subax wanaagsan. Fabregas oo shaaca ka qaaday inuu ku raaxaystay guushii Arsenal ee Manchester United. waxaan kaloo daawadayaal aan ku eegaynaa qodobo ay ka mid yihiin xidig u ciyaara Barcelona uu gacan haatiyay inuu tagayo kooxdaasi lagu magacaabo Arsenal. kulankii xalayta ee Manchester United-na waa uu daawaday. sheekooyinkaasi iyo kuwa kale ayaan daawadayaal ku eegaynaa ee u diyaar garooba. macalinka Arsenal ee Arteta waxa uu shaaca ka qaaday in uu filayo in xidiga lagu magacaabo Granit Xhaka uu baaqi ku sii ahaanayo qalcadda Emirates. wiilkaasi reer Switzerland waxaa si weyn loola xiriirinayay in uu baxayo bisha January iyadoo lala xiriirinayay inuu aadi doono horyaalka wadankaasi Jarmalka. laacibkan xalayto waxa uu ciyaaray 90 daqiiqo waa uu dhameystay kadib markii uu ka soo kabsaday xanuun uu la maqnaa. waxaana macalin Arteta uu shaaca ka qaaday in qadkaasi dhexe uu rajaynayo in baaqi uu ku sii ahaado waqooyiga London. waxaan filayaa in uu sii joogi doono halkan. waa xidig aynu jecelnahay, waa xidig wax ku ool ah ayuu yiri macalin Arteta. laacibkaasi 27 sano jirka ah waxaa la tilmaamayaa in si weyn loo tilmaamayo in uu baxayo bisha January, laakiin Arsenal sida muuqata waxay doonayaan in qalcadda Emirates ay ku sii hayaan. xidiga lagu magacaabo Aubameyang ee u ciyaara kooxda Arsenal waxaa sii xoogeysanaya kooxaha doonaya saxiixiisa kadib markii laacibka uu u gacan haatiyay inay suuragal tahay in January ama xagaaga uu ka howleelo qalcadda Emirates. laacibkani waxaa sidoo kale haatan kusoo biirtay baacsigiisa kooxda lagu magacaabo Inter Milan. Arsenal dhankeeda ma doonayaan in January ay iibiyaan laacibkaasi, haddii ay dhacdana waxay sugayaan inta xagaaga laga gaarayo. laacibkaasi sidoo kale waxaa baadigoobaysa kooxda lagu magacaabo Barcelona, qandaraaskiisana waxa uu dhacayaa xagaaga 2021. xidiga lagu magacaabo Samuel Umtiti ayaa ka careysiiyay kooxdaasi ee Barcelona. sidoo kale shaki ayuu geliyay mustaqbalkiisa qalcadda lagu magacaabo Camp Nou. laacibkaasi xalayto bartiisa Instagram-ka waxa uu soo dhigay sawir cadeynaya isagoo oo jooga qalcadda Emirates oo ay ku ciyaarayaan Man United iyo Arsenal. laacibkaasi wuxuu daawaday kulankaas oo ay ugu dambeyntii Arsenal ku badisay 2 gool iyo halkana tirsanaa wareega 21aad ee horyaalka wadanka Ingiriiska. laacibkan si weyn ayaa loola xiriirinaya in xagaaga uu ka tagayo, gaar ahaan sidoo kale bisha January iyadoo dhowr koox horyaalka wadanka Ingiriiska ay ka doonayaan. Mundo Deportivo waxay sheegaysaa in Arsenal oo kamid ah kooxaha doonaya laacibkaasi in tani ay tilmaan u tahay in laacibka uu xiiseynayo inuu ku biiro kooxdaasi ka dhisan waqooyiga London. ugu dambeyntii xidiga lagu magacaabo Cesc Fabregas, laacibkii hore ee kooxda Arsenal haatan u ciyaara kooxda Monaco, waxa uu shaaca ka qaaday inuu xalayta ku raaxaystay daawashada Arsenal oo ka badinaysa Manchester United 2 gool oo nadiif ah ay kooxdaasi Arteta ku garaaceen United oo marti u ahayd. laacibkani lagu magacaabo Nicolas Fabregas waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay waa mid kamid ah kulamadii ugu wacnaa ee ugu fiicnaa in muddo kooxdaasi Arsenal. aad ayaan ugu raaxaystay. laacibkaasi hore Arsenal ilaa ay wili jecel ayuu u hayaa kooxdaasi. yaraantiisa ayuu ku soo biiray gaar ahaan sanadkii 2003 waqtigaasi 16 sano jir ayuu ahaa. 8 sano uu ku qaatay kooxdaasi kadib wuxuu u wareegay 2011 kooxda Barcelona. dib ayuu horyaalka Ingiriiska ugu soo laabtay sanadkii 2014. daawadayaal wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo xanta suuqa kala iibsiga oo aad kala socoteen barta YouTube-ka inuu ku leenahay. daawadayaal xilligani waa iga intaa. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato janaalkan, fadlan subscribe, la wadaag asxaabtaada oo rukumo gambaleelka. intaa ayay nooga dhigeen wararkii. fi amaanillah. haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar, haddii aad ku cusub tahay janaalkan subscribe sar, gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaaladeena. wassalaamu calaykum.